daawadayaal waxaad ka nagala socotaan waa tv-ga kalsan waxaa hadda ila fadhiya oo aan waraysi kooban la yeelanaynaa maxamed cabdi afey oo ah ergeyga u qaabilsan igaad wadanka Soomaaliya. maxamed kusoo dhawow tv-ga kalsan. aad iyo mahadsantiin. ugu horreyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo urur goboleedka igaad arrimaha Soomaaliya wixii dagaaladii intii jirtay waa ku guda jira hawshiisa. ka waran hadda doorkan maanta jira igaad. wallahi horta igaad markii lagu yiraahdo dowladda Soomaaliyeed ayaa ka mid ah oo yani kama baxsana nidaamka iyo talooyinka igaad. si aan ogsoonahay hadda markii ay hadda dowladda Soomaaliyeed ka baxday isku meel gaarka oo hadda dowladda dhisan ay tahay dowlad aan ku meel gaar ahayn oo caalamkan aqoonsan yahay. ururkan howlihiisa markaa waxay ku soo aruursadeen si dowladda loo caawin lahaa oo dowladnimada xaq yani shacabka iyo Soomaaliya dowladda ay tiigsanaysa si loo gaari lahaa wixii looga baahan yahay dowladnimada. isla markaasna marka waxay taakulan la siin lahaa institutionska dowladda iyo maaragtay nidaamka programyaasha dowladda ee leedahay wixii u baahan dowladaha dariska igaad ay ka caawin karaan si looga caawin lahaa talooyin wixii talahan la siin lahaa. marka haddana yani ururka intiisa badan hadda ciidanka halka jooga Soomaaliya oo hadda AMISOM ku howlgalaya magaca AMISOM waxa weeyaan ciidamada kima dowladaha dariska igaad. marka wax howlo badan ay runtii wadanka hadda yaa hadda uga muuqdan ay wali qaban karaan laakiin hadda inta ka horeysay waxay ahayd dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dhisidda maaragtay dowladnimada Soomaaliyeed shirarkii ka soo bilowday Djibouti ilaa ay ku Nairobi ilaa ay ku wadana Djibouti ku soo noqday ilaa hadana soo noqday Kampala meelo badan baa la soo maray maaragtay inay Soomaaliya dowladnimada hagaagto. marka hadda guud ahaan shaqooyinka waxa weeyaan sidii loo garab geli lahaa loo xoojin lahaa loo tala bixin lahaa ka ururka arrimaha Soomaaliya dowladnimadeeda. mudane maxamed waxaa la sheegaa dadka shacabka Soomaalida in igaad ay inta badan aysan arrimaha Soomaaliya aysan dhexdhexaad ka ahayn oo maaragtay dalalka igaad ku jira ay dana gooniya ay wataan. ciidamo ka tirsan igaad wadanka waa joogan hore 2007 usoo galeen oo dowladda Itoobiya ka mid tahay. hadda waxaa la leeyahay intaas sano 8 sano ku dhawaad ay joogaan. ciidamadii dowladdii Soomaaliya ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliya wali lama aasaasin. marka igaad dadka qaar waxay aaminsan yihiin inuu yahay mashruuc ay dowladahaas safka hore ay inta badan maaragtay ay wataan reer galbeedkana u sahlaya danahooda ay ka leeyihiin Soomaaliya. horta runtii de wax la sheegay wixii xaqiiqada tahay yani horta waa la sheegi karaa oo ma yani wax adag wax la sheegay laakiin horta wadanka waxa weeye Soomaaliya waxa iska leh Soomaali waxa u tashanaysa Soomaali waxa in la heshiiyo ay rabtaan waa Soomaali haddii diidaan inay heshiiyaan cid heshiiskaas qaadan lahayd waa Soomaali. marka horta meel ay hadda xoog ahaanta yani dowladahan igaad oo la leeyahay dana gaar ay leeyihiin mesela beesha caalamka u fududeynayaan ana intaa waxaan ku bedeli lahaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed wadankan waa wadan iyaga ay leeyihiin oo inay u tashadaanna ay muhiim tahay. inta kale waa taakuleen ciidamada hadda ku dhamaanaya Soomaaliya marka Soomaalida laga saaro oo Soomaalida iyaga wadankooda inay u dhintaan xaq ay u leeyihiin laga saaro ciidamada kale waa ciidamo daris ah oo imaaday inay caawiyaan. marka danta weyn ay u leeyihiin inay wadanka ku dhintaan yani maxay tahay inay ahayn dan Soomaaliyeed in lagu caawiyo iyo dowladnimada iyo karaamada la soo celiyo. marka anigu waxaan oran lahaa intii laga baxaa is-eedeyntaas loo gudba Soomaaliya waxay rabtaa wax u tashan karta Soomaaliya inay tashato. laakiin maxamed lama dhihi karo ciidamadiina 8 sano jooga wadanka dan ay ku qaban waayo waxay qaataan mushaar taradii ka batay ciidamada AMISOM Soomaaliya jooga oo igaad ay ka mid tahay. ciidankii Soomaaliyeedna hadda sida uu sheegay wasiir gaashaaniga $150 ayaa loo leeyahay. ciidankiina lacag ku dhaw $1,000 ayuu qaataa. marka miis ah intaas interest weyn oo ummadda u muuqan kara. runtii horta lacag marka aad fiiriso iyo dhiig baxaya tii muhiimad taagtee muhiimsan naf go'aysa meeqa lagu qiimeyn karaa oo
tu Soomaaliyeed iska daa hadda midda shisheeyaha markaan waxay waxaa dhimasho badan ciidamada Soomaalida dhimasho badan markii loo fiirsho xataa dhiigga xataa weyn hadda waddankoodii u dhimanayaan yaa dilaya way marka yaa laynaya ciidanka Soomaaliyeed yaa laynaya dhalinyarada jaamacadda akhrisata oo Muqdisho kasoo qalin jebinaysa yaa laynaya dadka hoteelada coffee ku cabaya oo iska yani danahooda beecsharo iyo nidaamkooda iska wata yaa masaajidaha u geelaya oo dadkan laynaya ma shisheeyaa mase waxaa weeyaan dadkii waddanka maaragtay qaarkood sheeganaya marka muhiimadda waxaa weeyaan waxaasoo idil waxa looga bixi karaa yani waxaa looga bixi karaa dowlad Soomaaliyeed oo shaqaysa ummadeeda u adeegta iyo shacab Soomaali oo diyaar u ah dowladnimada in la helo laakiin dowladda Soomaaliya inay shaqaysaba waxay hortaagan leeyahay dalalkii dariska waxay hortaagan dalalkii reer galbeedka madaxda Soomaalida waa ujeedaa waxay ku leeyihiin wax kasta dusha ayaan kaga keenaya markaad wareysatid siyaasiyiinta waxay aaminsan yihiinba in ay ayaga roolka ay Soomaaliya ay ku leeyihiinba ay yar tahay marka sabab ma muuqato Maxamed inay maaragtay wixii dhama isoo yihiin oo si dhab aan looga hadlaynin waxa jira halkan hadda waxaa laga shiraya arrimaha Soomaaliya waxay u jirtaa Soomaaliya intaasoo yani intay u jirta Copenhagen waa garan kartaa dhaqaalaha ku baxay nidaamka ku baxay waa laga shirhayaa waxaan dhaqaalahaas ka baxay Maxamedow Brussels waa lagu shiray waa joogto ku arkay inta waa lagu shiray Soomaaliya wax ka soo gaara male only hotel qurux badan oo Copenhagen ku yaala ama Brussels ku yaala ayaa lagu shiraa laba bariya lagu qadeeyaa waan lagu kala tagaa marka really waxa muuqda oo danta Soomaaliya ugu jira maanta dadku waxay dhalinayaan waa arintaas hatta hadii shirka inta lagu qabanaya ay ku qabanayaan magaalada Muqdisho hatta dadku waxbay u aan leed sax waan eedaasito waan la qaadanaynaa shacabka Soomaalida oo ka qeylina oo yiraahda caalamka Soomaaliya way ka saxdeen yani waxay ku lahayd caalamka Soomaaliya lama siinin dhaqaalaha loo yabaho ilaa hadda lama siininba marka waa eed jirta oo runtii u baahan marka inay meesheeda markay la gaaro laga hadlo laakiin dowladnimada Soomaaliya iyo wadajirka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya number 1 waxaa ka ah go'aan Soomaalida ay gaartay inay waxeeda sameystaan dowladda Soomaaliyeed ayay lahayd waan ogsoonahay wadamada ugu xornimada ugu hor qaatay Soomaaliya ayay ahayd wadamada electionka ugu hor dhaca xor si xor iyo dowlad lagu faanayay ahayd wadamo fara badan oo Afrikaan dadka badbaadiyay oo xornimada dowladaha kale Afrikaanka oo markaa qaadanayay qayb ka qaatay Soomaaliya ahayd waxba ku dhacay marka Soomaalidu wixii ku dhacay marka waxa loo baahan yahay inay iida marka horta ay xalisato kadib wixii caawitaan ay u baahantahay waan ognahay wixii loogu tiragalay Soomaaliya lama siinin haddana looma haya shalayna looma haynin laakiin waxaad garan kartaa 20 iyo dhowr sano burbur wadanka ka dhacay dhowr sano horta ma jirin xataa magaca Soomaaliyeed qof ku imaado madaxweyne ma jirin doctor 9 iyo kowgi ilaa iyo 2000 Soomaaliya ma jirin kama muuqanin ba caalamka meel shir ay imaanayna ma jirin kadib urur goboleedka IGAD iyo beesha caalamka abaabulkii Djibouti ku sameeyeen ayaa lagu helay dowladda ku meel gaar ah waa la sii kaxeeyay dowladda ku meel gaar hadana waxaan iskugu tagnay maaragtay meeshii la yiraahdo Nairobi oo Kenya hadana dowlad kale ku meel gaar ah Cabdiqaasim ninkii la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Allah uu naxariistay oo madaxweyne ka noqday ayaa maaragtay la soo hagaajiyay isla markaa hadana waa kii la waday baaqaa madaxweyne hadda ay sii maraysaa hadda ku meel gaarka waa laga baxay waxa loo baahan yahay marka intii aan anagu shacabka Soomaaliyeed ay ku yara mashquul lahayn madaxdooda waa noola tashanaya oo caalamka noo tashanaya inta lagu mashquul lahaa ama lagu mashquulo anaga aan tashano waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo kale waxaad ka mid tahay dadka IGAD Soomaaliya u qaabilsan waliba ergey u sarreeya tahay waxa saxiixda heshiisiyo oo Soomaaliya gudaheeda ay galaan heshiisyadaasna waxay moodaa markii xataa reer galbeedka ay saxiixayaan sida qaramada midoobay European Unionka Afrika inay heshiisyadii iska maarta heshiisyo sida Soomaalida oo kale laftiina u dhaqmaysiin oo heshiis madaxtooyada ku saxiixdeen oo maaragtay sida gobolada federaalka kale haddana inta tagtiin gobol kale ku soo saxiixaysiin haddana meel kale ku saxiixaysiin marka dadku dhaliisha ay qabaan Maxamed oo runta wax waaye dadkii la bidayay in Soomaaliya caawiyaan ayaaba sidii Soomaalida u dhaqmaayo heshiis markii gaaraan haddana ka baxayo heshiis kale la gaaraya taasina waxay nooc min fawda noqonaysaa runtii horta arrimahaas waa laga hadlay laakiin waxa weeye aan wax ka duwanaan qabaa maxay yeelay horta heshiisyadu anagu Soomaaliya hadda dawlad baa ka dhisan heshiis lama sameynayna qabiil lama sameynaynin maaragtay shakhsi heshiiska waxaa abaabulayay hogaaminayay nidaaminayay dawlad Soomaaliyeed haddii aan dawlad Soomaaliyeed ay Soomaalida aqoonsaneen waa meesheedii laakiin haddii la aqoonsan yahay inay dawlad Soomaaliyeed jirta oo xamar ka shaqeysa madaxda Soomaaliya oo madaxweyne leh oo ra'iisul wasaare leh oo galo wasiir leh talooyinka iyaga ay keenaan oo waxay Soomaalida dhexdeeda ku heshiiyaan bay beesha caalamka IGAD ka noqdaan goobjoog waxaan saxiixna ma inaan saxiixa ka mid aan nahay mana diyaarino mana ogin laakiin ka goobjoog ahaan
marka soo horjeedaan waxa siixaysiin okay gobolada dhexe oo kale aad ku saxiideen xamar oo adigu kamid ahayd haddana Puntland aad ku soo saxiideen waa iska soo horjeedaan waana muuqataa marka صح labadii dhinacba waa tabanay waxa leeyahay kana waa u saxiixna kana waa u saxiixna ismay labadaba dawladda hogaaminaysa labadaba hadday ku tiraha anaga halkaan aan maanta ku shiraynaa waxaan heshiiskaan aan leenahay anagu waajibaadkana saaran waxa weeye inaan idhaha ahlan wasahlan Soomaali heshiinaysan anaga maba kala diri karnaba marka waxaa muhiim ah in taas la caddeeyo heshiisadan waxaa hogaaminaya saldhigna u ah institutionska dawladda marka Soomaalida waa laba inay kala doorataa in institutionska la aamino lala shaqeeyo khalad walba ha galaan khaladkana waxaa jira nidaam lagu saxa iyo maartay iyo inay foodlo loo baxo hadee la noqdo inay okay taas waa ka gudubna wax rabnaa ka weydiiyay mid Soomaali badan ay og yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa iskhilaafay khilaafkooda banaanka u soo baxay waxa ka hadlay UN-ka ka hadlay Mareykanka ka hadlay wadamadan kale adiga waxa kamid ah dadkii isku dayay shakhsiyan Maxamed ahaan adoo igad ka wakiil ah inaad labadooda dhexaasid oo ummad badan ayaa ka warsugaysay horta heshiiskaas aad isku dayday sidaas ugu dhigi kara lagaaga diiday ama aad ugu fashilantay horta anagu khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu na dhibay ilaa hadduu na dhibaya waxaana soo jeedinay shalay waxaan soo jeedinay maanta waxaan leenahay khilaafkaasi waa in si degdeg ah madaxda qaranka ay uga wada hadlaan ay khilaafkooda ay dhameystaan khilaaf hadda loo baahan yahay ma aha khilaaf anagu ma aragtay aan qayb ka nahayna ma aha kelito waxaana dhibaysa madaxda dawladda Soomaaliya inay maaragtay hadda aan ku soo wada taa horta waxa weeyaan positionki midda labaad waxaan u tagnay meesha aniguna media-ga iyo waxaas isticmaalaynin oo ka hadlayn anagu dadka banaanka ka buuqamaana ahayn waxaan islahayn odayaashan hoos ahaan isku daya inay maaragtay ay heshiin karaan isla markaas iyagoo anaga hadalkii meel fiican noo marayo oo yani aan isleenahay ilaa xad waxaad ku guuleysateen in la wada hadlo oo la fariisto oo arrimihii laga tashado iyo haddana xildhibaanadii baarlamaanka ilaa baarlamaankaas waa baarlamaan sovereign ah waa baarlamaan Soomaaliyeed wax anaga hadda aan baarlamaankaas aan shaqo ku leenahay masaan awood ku leenahayna ma ahayn ayaa markaa arrintii gacanta yani taladii maartay gacmaha la soo galay oo la wareegay marka ilaa haddana waxaan ku fashilayna waxaan codsanaynaa oon leenahay shacabka Soomaaliyeed institutions ayuu leeyahay laakiin madaxweynaha waa u tagtay waad ka codsatay inuu heshiiska maaragtay oo ka qayb qaato sida lagu maqaalaa ra'iisul wasaarahana waa u tagtay ra'iisul wasaaraha waa ka ogolaaday sida lagu maqaalaa laakiin madaxweynuhu wuxuu sheegay in beesha caalamka iyo weliba goboleedka iyada ay heshiiska gudaha Soomaaliya lagu dhameeyo baarlamaanka loo daayo oo aan soo faragelin sidii looga bartay awal heshiisyadii hore ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha la soo fargelin jiray wallahi horta anagu maana ahayn hebel aad u tagtay iyo hebel saas uu ku yiraahday cid anaga inooga warrami karta wixii na dhaxmaray anagu unbaa og anagu waxaan ku talinay ilaa haddan aan ku talinay markaasna xamar aan u tagnay inaan ku talinay inay arrintani aynan fogaanin oo madaxda ay tanaasul waxa la yidhaah la sameeyo oo waddankan maaragtay hadda maaragtay u muuqda inuu isu soo kabanayo aysan arqalad siyaasadeed aan la gelinin marka tala guud tala darisnimo weliba aniga mid ziyaaday ee hadda anigu ma ogtahay yani safarada kale lamid mihi oo waxaan ogahay waddankan inuu u baahan yahay waqti badanna dhibaato la gaarsiiyo haddana u baahan yahay maaragtay inuu soo kabto marka talada waxay ahayd oo welina aan leenahay oo haddana halkan aan ka cadaynayno bifadal madaxda qaranka Soomaaliya tanaasul waddankiina u sameeya wada hadla dowladnimada Soomaaliyeed hadda meel fiican soo gaartayna ha iska burburinina taas mid kale marka halkaas ka soo arrimaha Soomaaliya soo tagno Kenya waxa tahay nin Kenyan ah xildhibaan ka soo noqday safiir ka soo noqday waxaa la socotaa in laba week ka hor ay baarlamaanka Kenya ka doodeen in Soomaaliya xiriirkii loo jaro arrimo badan oo Soomaaliya iyo Kenya dhex yaalla oo dhinaca waliba xuduudaha badda arrinkaasi adoo Kenyan ahaan sidoo kale yahay xilligan oo dowladda Kenya ciidamada gudaha ku jiraan in Soomaaliya xiriirkii ay ka doodaan xiriirka u jiraan horta informationka waa khalad oo in la saxa u baahan baarlamaanka Kenya oo fariistay oo ka dooday ma jiraan mar ay dhacdayna ma jiraan dadkiina dadka waan hadda ana ku waramayo magta warbixinada ay siinayaan yani maba jiraanba in baarlamaanka Kenya uu intuu
hool la hor dhigay lagaga doodaya xiriirka Soomaaliya iyo Soomaaliya waa kow midda labaad guddiga naftigiisa wuxuu soo saaray ma jiraan wuxuu soo saaray guddiga waa been fariin yaa laga sameeyey been abuur ayaa laga sameeyey inuu guddiga saas ku talnaa waxaana soo qora dadka maaragtay jaraa'idaha iska qora iyadoon waxba u fiirsanan arrintan miidiyaga maaragtay waxyaalo fara badan yaa la iskaga soo qora oo been annagoo intaasoo sheegay oo beenana laga qoraa maalin walba oo si isku difaacnana ayna jirin ma ogtahay marka wixii xaqa oo runta waxaa weeyaan lagama hadlin arrintaas lama soo wajihin xiriirkii Kenya iyo Soomaaliya waa fiican yahay wuu fiicnaa weligiisu fiicnaan doonaa taas way jirtaa laakiin xiriirka ma aha inuu halaabay halkaas dowlad Soomaaliyeed oo sovereign ah yaa tala geysatay taladan waa lagu maqan yahay laakiin taas waxba uma dhibaysa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya berrina uma dhibaysa maantana uma dhibaysa shacabka Soomaaliyeed waan ogsoonahay sidii loogu soo dhaweeyey Kenya sidii u joogaan aan ogsoonahay burburkii Soomaaliya ka dhacay qaybta Kenya ay ka qaadatay badbaadada Soomaaliya aan ogsoonahay qaxootiyaha faraha badan halkaas joogaan ogsoonahay dhaqaalaha Soomaaliya oo yaala Kenya oo ku badbaadaan ogsoonahay tacliinta halka dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadankii markuu soo burburay ka samaysanaysa aan ogsoonahay xiriir siba halaabi kara ma aha annagana ma ogolaanayna Kenya iyo Soomaaliya xiriirkeedu inuu ma aragtay uu halaabo waan ka shaqaynaynaa inuu si hagaaga haddii ay jiraan meel isla fahmi leeyahayna inaan iswaafajino isfahamsiinaan ka shaqaynayna laakiin waxaan la qaybinayaa oo beenta ah runtii inay maaragtay Soomaalidu ayna dhegto u dhigin ayaan soo jeedin lahaa aad iyo aad u mahadsantiin daawadayaal halka aad nagala socotaan waa TV Kalsan oo aanu ku waraysi la yeelanay Maxamed Cabdi Afey oo ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan IGAD Maxamed Cabdi Afey aad iyo aad ugu mahad celinaya aad iyo aad mahadsantiin Kalsan TV shukran